ruushka oo markaa isku diyaarinayo inuu qaado dagaal oo nuclear ah taasoo sababi karto inuu dagaalka saddexaad ee adduunka aanu dheeraanba islamarkaana uu soo gabagaboobo xilli dhowna uu bilowdo. madaxweynaha ee dalka ruushka ee Vladimir Putin ayaa gebi ahaanba heegan geliyey gantaalada loo yaqaano ee nooca nuclearka ay yihiin kuwa uga halista badan ee adduunka, ayagoona la adeegsaday tiro laba jeer oo markii xilligii oo Mareykanka ku dhufanay ee dalka Japan. Iminka ruushka wuxuu banaanka magaalooyinkiisa waaweyn ee ruushka oo isagu soo bixiyey sidoo kalena diyaariyey nuclearada isagoo xusay inuu diyaar u yahay dagaal oo nuclear uu adeegsan doono. ruushka haddaba maxaa ka jira in wararka sheegayaan in Vladimir Putin oo qorsheenayo inuu weeraro mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan ee Yurubiyaanka sida Faransiiska oo kale suurgal ay noqon karto inuu weeraro. dhowr maalmood ka hor waxaa weerar lagu qaaday magaalooyinka waaweyn ee ruushka iyagoo diyaarado gaaraya 13 ee droonta aan duuliyaha lahayn ee lagu duqeeyo islamarkaana nooci weerar oo cajiib ah oo kii ugu horeeyay uu yahayna si toos ah oo aanu u fashilmin islamarkaana uu hergalay ay fuliso dalka dowladda Ukraine ayaa weerartay gudaha dalka ruushka. sardoonka ruushka ayaa ku ceeboobay inay soo ogaan waayaan in weerarka uu ku wajahanaa magaalooyinka waaweyn sidoo kalena uu ahaa dagaal istiraatiiji oo culus isla si qorsheysan loo soo diyaariyay in la duqeeyo gudaha dalka ruushka kadib duqeymahaasi wuxuu muujiyay inuu heegan dagaal oo diyaar u yahay maadaama toos loo galay gudaha magaalooyinka waaweyn ee ruushka. Vladimir Putin wuxuu diyaariyay hubabkiisa nuclearka. maxaa soo socon doono maxayse tahay waxa la filan karo haddii uu bilowdo dagaal nuclear ah. dagaalka saddexaad ee adduunka ayaa toos u bilowday. sidoo kale cabsi weyn ayaa ka muuqato wadamada Yurubiyaanka ay muujinayaan shalay ilaa maanta cabsida ugu weyneed ee abid ee taariikhda laga muujiyo inuu qaraxo dagaal saddexaad ee adduunka oo ruushka sabab u yahay. ruushka wuxuu ka mid yahay wadamada ugu badan ee heesta nuclearka wadanka ugu badan uu yahay islamarkaana uu kaga jiro kaalinta koowaad halka wadamada Mareykanka iyo Jeynaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay soo galayaan kaalmaha xiga. Vladimir Putin markan wuxuu diyaar u yahay inuu qaado dagaal toos ah islamarkaana uu ku weeraro nuclearka. waxaase la xusay inuu suurgal ay noqon karto in Ukraine uu weeraro ama suurgal ay noqon karto wadamada iminka sida tooska u taageera Ukraine uu ka mid yahay Faransiiska oo ku qaado oo weerar toos ah taasina ay sababi karto inuu qarxo dagaal oo adduunyo saddexaad ah. ruushka ayaa ka digay in markaasi ay xilligan ay tahay xilli aan la taaban karin. haddii Ukraine ay weerar jirtay islamarkaana weerar ay qaadi jirtay waxaase Ukraine markani ay gashay digtoono culus taasoo ay ka baaqsatay waxyaalihii iyo weeraradii ay qorsheenaysay. wadamada Yurubiyaanka ayaa canaananaya wadanka Ukraine iyagoo ku eedeynaya weerarka uu qaaday dartii ay sababi karto inuu dagaal saddexaad adduunka uu qarxo. Vladimir Putin ayaa marka la doonayay ayaase la sheegay inuu qorshihiisana yahay inuu weerarkan oo toos u bilowdo islamarkaana aanu baaqnin. baawrada waaweyn oo ku gaashaaman hubka nuclearka ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ruushka ayagoo maraya wadooyinka sidoo kalena la diyaariyay. hadba waxaase la sheegay in nuclearada loo kala qaybiyay wadamada Yurubta iyo sidoo kale wadamada wadanka Ukraine iyo dhinaca Faransiiska afkooda la saaray taasoo suurgal ay noqon karto. sidoo kalena qabiiro ay sheegeen inuu qaraxo islamarkaana madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu qorsheenayo weerar culus oo ku weeraro wadamada Faransiiska ugu horeeyo sidoo kalena Ukraine ay safka ay soo saaran tahay. ruushka wuxuu qorsheenayaa iminka sidoo kalena heegan xoogan uu geliyay militarigiisa dalkaas kuwii tooska diyaarka u ahaa weerarka iyo sidoo kale dalka oo dhan ayaa si toos ah xaalad emergency oo heegan oo dagaal uu ka muujiyay. alarmiga dalka ruushka ayaa gabi ahaanba leeyahay taasoo macnaheedu tilmaamayso inay shacabka ay islaaliyaan suurgalna ay noqon karto in xilli kasta oo qarxo dagaal saddexaad ee adduunka. cabsi weyn ayaa laga muujiyay gabi ahaanba adduunka iyadoo muuqaalka hubka nuclearka dalkaasi ruushka uu ka faafay baraha bulshada iyo sidoo kale wadamada adduunka cabsida laga muujinayo ah
in uu ruushka uu qaado weerar saddexaad ee dagaalka saddexaad ee adduunka. Wadamada Yurubiyaanka ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda, sidoo kalena Ukraine ay ku canaanteen falka ay geysatay, taasoo ay sababtay imika inuu ruushka uu xanaaqo. maxayse ka dhigan tahay in ruushka uu ku xanaaqo wadamada Yurubiyaanka? haddii ruushka uu xanaaqo keliya, awoodda nuclear ee ruushka waxay ku filan tahay dhammaan wadamada Yurubiyaanka loo qaybiyey oo Mareykanka uu qayb uu ka yahay. balse taa beddelkeeda Yurubiyanisku waxay isku dayaan inay dejiyaan ruushka. dagaalkii horaantii tan iyo sanadii 2022 markuu bilowday weerarka Moscow ay ku qaaday Ukraine, waxaase isu soo tareeyay ganaaxyada iyo sidoo kale cadaadiska caalamiga iyo cunuqabateynta ee la saarayo ruushka. waxba iskuma bedelin iliisa dhaqaale, sidoo kale wax kasta uu ka ganacsan jiray wadamada ay ugu horeeyaan Kuuriyada Waqooyi ayaa la garab taagneed wax kasta, iyo sidoo kale Turkiga wuxuu diyaarado uu ka iibiyey dalka Ruushka, isla markaas uu dagaalo culus uu ka socday uu kula jiray dalka Ukraine. waxaase ayaguna sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogay Mareykanka iyo madaxweynihii xilligaasi Joe Biden. balse cunuqabateynta ayaa waxaa ka qaaday madaxweynaha talada uu dalka taladaasi dib ula wareegay Donald J. Trump ee sanada 2024. qorshe weyn ayaa ka socda dalka Ruushka iyo sidoo kale adduunka oo dhanba ayaa indhaha ku haya wadanka Ruushka iyo madaxweynaha Vladimir Putin. maxaa laga filan karaa madaxweyne Putin ilaa hadda sooma hor istaagin saxaafadda, sidoo kalena wax warama uusan soo saarin. taa waxay ka turjumaysaa xanaaqa heerku gaarsiisan yahay Putin in la duqeeyo magaalooyinka waaweyn Ruushka, sidoo kalena dhib weyn ay geysteen Ukrainiyaanku. waxay qorsheeyeen weerar aad iyo aad isla markaan loo soo diyaariyey, taasoo la sheegay in sarkaalka ciidamada ugu sareeya ee dalkaasi Ukraine uu ka mid ahaa qorshaha la diyaariyey, iyadoo qorshaha oo lagu weerarayo magaalooyinka waaweyn ee Ruushka, iyadoo sirdoonka Ruushka ay heli waayeen xogta in la weerari doono gudaha dalka Ruushka. Ukraine waxay waday qorshaheedii ugu muhiimsanaa oo ah inay mar ay gacanta ku dhigaan, sidoo kalena ay soo ceshadaan magaalooyinka ay ka qabsatay, sidoo kalena lagu daray khariidada dhulweynaha Ruushka. Ukraine waxay halgan ay ku jirtaa in muddo iyadoo doonayso inay madax banaani toos ay hesho, sidoo kalena dhululkeeda ay u baneeyaan, balse Ruushka uma ogolaan doono, iyadoo Ruushka danihiisa gaarka uu ku jiro inuu qabsado, sidoo kalena uu burburiyo gebi ahaanba dalkaasi Ukraine. adduunyada oo dhan ayaa indhaha ku haya waxa uu ka hadli doono ama sidoo kale hadalka ka soo yeedhi doono madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. wuxuu noqon karaa qorshaha madaxweyne Vladimir Putin oo doonayo inuu ku halisgeliyo, sidoo kalena uu ku weeraro wadamada Yurubiyaanka iyo wadamada iyo sidoo kale wadanka Ukraine. daawade soo dhawow, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. halkan haddii uusan ku rugmanin, saaro subscribe si aad u hesho warar kasta oo soo saaro oo ka soo baxo Bunni Media.